salaan kadib waxaan runtii aad ugu faraxsanahay idinkoo maanta u fadhiya wacyigelintii aafadan ku soo kordhay adduunyada xanuunkan waxaanu odhan jirnay safmar waxa weeyaan aad u culus oo adduunyada aad iyo aad dhibaato weyn u geystay innaguna aan dadaalkayga kaga jirno inaan maaragtay wixii alla qadariyado halkiisa tahay haddana aynu maarayno inaan la kulmay idinkoo maanta hawsha ku jira anoo hooyo un maanta u soo qastiyey inaan u imaado oo muddo 2 bilood aan iman kana baqay dee kolley in xaaladu si adkaadano haddii la kala xidhmo dee maanta ka soo ducayso iyagana wuxuu soo waaya sheeg waalidkii iyo dadkii waaweynaa halista ugu badana dadka wax haystaa waa dadka waaweyn haddayna aad u wacyigelina dee dadkii waaweynaa waa la isku dul tegaya waa la isdhunkanaya waa la qabsanaya qofkii waxaana gebigiisii wuxuu noqday waa taabashada iyo isku dhawaashaha wuxuu wax ku fidaya dawo looma hayo laakiinse waxa noqotay la dagaalankiisii in isku imaatinada la kala ilaaliyo istaabashada isku dhawaashaha intaasaa dagaalka ugu badan dawadiisu noqday mar haddaad maanta u fadhidaan waxa kaliya lagu kordhinayna annagu waxa weeyaan wixii warka dee waad la socotaanoo waynu wada joognaa maalin walba wixii aan shir la qabto haddaanu guddiga qaranka nahay qaybihii bulshada waan la kulannay shalay waxaa u dambeysay culimmada yaa u dambeysay culimmadii iyo dhakhaatiirtii ku takhasustay PhD ku haysatay xanuunada ayaan iska hor keennay dee waa la wada hadlayay waxa talada way nooga dhaxaysaa sidaynu hawshaasi u maaraynaa oo magooda howlgalnaa horta aad iyo aad baad mahadsantihiin haddaad hawshaa u fadhideen arrinta ugu muhiimsanna waxa weeye allabarina la dayn maayo waxaase lagu darayaa ururka waxaa laga cararaya waa urur si alle sidii ururkaa loo joojin lahaa ama loo yareyn lahaa wayna ka fikirno maanta way wada fadhiyaan markaa imika culimmadii waxay shalay yidhaahdeen waad lagaabada dhegaysteen waxay annagu isku noqonno wasiirkii hawsha qusaysay iyo culimmadii fadwada annagu soo saarna markaa bay dhaheen wixii haddaan masaajidii joojinayno haddii kaleba xagga culimmada ka timaadeen intii la odhan lahaa dowladdu baa iska tidhay masaajidii xidha laakiinse waxay wada qireen in diinteennu diin waasaca tahay in diinteennu ayna ahayn diin meel keliya ku dheggan in waxaan horey noo u soo maray in kala ilaalintaasi ay dhacday in wakhtiga la sheegay daacuunka ugu adag ka dhacay masar oo dadku de iyagoo isle wax kordhista oo islaahaan dibadda u baxnoona la bari sidii maartay aynu roobdoonta u baxayno ha loo baxo tii ay keentay markii dadku isku baxayoo kumanaal ay isku tageen dibaddii jeermiskii wada qaadsiiyeen oo dhimashada sii farabaatay marka waxaasoo dhan dee ciidigaa u cilmi leh marka cilmigii waxay isku dabaqaynaa waxay caafimaadku naga yidhi aqoontii iyo caafimaadku iyo keeni oo dee wakhti walba tilmaamaya sidii wax ku wanaagsanaanayaan ku aslaaxayaan nafta waxaana noogu qiimo badan aynu ku wada dadaalaynaa nafta bini aadamka sidii loo nabadgeli lahaa loo badbaadin lahaa dhibtii waa idinka maqlayo waxaa la marayaa maanta waalidkii ama qofkii xanuunsaday haddaan odhan jirna awal qofka waxaa lagaga soo haraa qabriga oo markuu qabriga tago camalkiisii wixii adduunyada baa raaca la odhan jiray iminka gurigaa lagaga hadhayaa qofkii oo nool oo waalidkiisa yaanan maanta awal ka fikirayay maanta haddaad carruurtaada la joogto oo walaalkaa la joogto oo xaaskaaga ku hayaan intaasoo qof baa kuu iman doonta beriton oo madax ku qaban doonta waxyaabaha iminka dhaceen mucjisooyinka kolka lagaa qaadaa kugu dambaynaysa markaa nin culimo ah oo kanada ah oo sheekh islaam ah ayaa gabadhii aad ugu calaacalay gabadh dhakhtarada wuxuu waxaan aad uga murugoonayaa buuri xanuunkiina aad buu hayay bay tidhi inantaas way lilmaynaysaa gabadh soomaaliyeed ka soo hadlaysa weyn kanada waxaan ka lilmaynayaa buuri maanta inaan ehelkaygu qofna inuuna igarab joogin oo igaga hadhay anoo weli nool halkii laga soo qaaday guriga iga hadheen buuri oo ilaa aan qabriga tegay cid soo raacaysa iyo cid maartay igarab joogaysa midna jirin buuri yani waa aafadaa maxaa loo gaadhsiiyey dee nin walba waalidkiisa uu jeclaaye dee dhibta xanuunkaas keenay iyo fididiisaas ayaa loo gaadhay inaan loo dhowaanayn kolkaa kolley ilaa habkii aaska iyo waxoo dhanna ilaahay naguma keenay hadduu da yimaado nidaamka waa la soo dhaadhicinaya waa la soo gaadhsiin doonaa marka waxaynu isku boorinaynaa un hawsha magaalada in culays badan la saaro oo wacyiga masaajidda aad ka wadaan
xagga miidiyaha iyo wasaaradda warfaafintuna way wadaysaa labada waxa uu muhiimsanaa shaqadii maanta ugu badnayd ee caafimaadku isagoo caafimaadku in dadkii la tacaalo hor joogsado mooyaan shaqada ugu weyn la qabanaya maanta lagula dagaalamo xanuunkani waa wacyigelintina diinteena islaamka ka koowa warbaahinta adduunyada maanta la isu gaarsiinayo warka iyo ku laba marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin